magaalada muqdisho ayaa lagu soo gabagabeeyay markii shanaada bandhiga sanadlaha ah ee buugaagta ee loo yaqaan muqdisho book fair oo muddo 3 bari ah ka socday hoolka sahal ee garoonka aadan cadde ayaa waxaa ka soo qayb galay tiro badan oo qorayaal Soomaali iyo ajaanib isugu jirta kana koobnaa rag iyo dumar kuwaas oo u badnaa dhalinyaro hal abuur wanaagsan soo bandhigay dhaga kalena kasoo qaybgalayaashii madasha ayaa ahaa dadweyne isaga kala yimid guud ahaan gobolada Soomaalida haba u badnaadeen magaalada caasimadda ee Muqdisho kuwaas oo isugu jiray qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay kamid ahaayeen ardayda wax ka barata jaamacadaha iyo waliba dugsiyada gudaha dalka Soomaaliya sidoo kale aqoon-yahano iyo dadka daneeya akhriska qoraalka iyo waliba sidoo kale suugaanleyda murtida iyo xigmada leh ayaa kamid ah dadkii ka soo qayb galay halka sidoo kale ay goobta ku sugnaayeen aqoon-yahano kale oo Soomaaliyeed iyo ajaanib isugu jira kuwaasi oo dalka dibadiisa ka yimid waxaana kamid ahaa daaciga Soomaaliyeed Abubakar Maxamed iyo walaalkiis Umar Faaruq oo ka yimid dalka Holland Abubakar ayaana qoray abuuga la magac baxay ku raaxayso nolosha martida hadalada dhaxalgalka ah ee qiimaha badan intii uu socday bandhigo ka soo jeediyay ayaa waxaa kamid ahaa Dr. Ali dhanka kalena Abubakar Maxamed ayaa isagana waxa uu soo jeediyay muxaadaro qiimo badan isagoo sidoo kalena ka hadlay ujeedada buugiisa waxaan ku tahay waxay tahay sababtoo ah murug hadaysan jiri lahayn farxadda lama dareemi lahayn lama fahmi lahayn qiimaha ay leedahay nalkan looma yara dareema mugdisa caafimaadkana markii la xanuunsado wax walba waxa ka soo horjeedo nicna iyo qiime u yeeshaa farax mugda waa u baahan sababtoo ah farxadda haddii kale lama fahmi lahayn ugu dambeyntiina ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa bandhiga soo xiray isagoo khudbad dhinacyo badan taabanaysa kula hadlay ummadda Soomaaliyeed waxa uuna sidoo kale uga mahadceliyay intii soo qaban qaabisay barnaamijkan oo markii shanaad oo xiriir ah magaalada Muqdisho lagu qabanayo wuxuuna sidoo kale bogaadiyay dadweynaha Soomaaliyeed ee sida hagar la'aanta uga soo qayb galay bandhiga carwada buugaagta ee magaalada Muqdisho bandhigani waxaan isleeyahay waxa uu ka turjumayaa kobaca warxurinta ee ka hanaqaaday dalka Soomaaliyeed waxa uu ka turjumayaa dib u eegidda mustaqbalka iyo fahamka dowladnimo oo yaaleen kuwa kala duwan oo ay qoreen dhalinyaro Soomaaliyeed wiilal iyo gabdho